maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan oo lagu duceysto bisha Ramadaan intaan la gaarin. haddaba ducadaas maxay? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii ugu horeysay oo ahayd sideen usoo dhaweynaa bisha Ramadaan ama aaga faa'iideysana. maadaama xalaqadii ugu horeysay ay tahay, waxaan jeclaystay inaan ku bilaabo waxa ugu horeeyo oo lagu soo dhaweeyo bisha Ramadaan inay tahay ducadan. haddaba si fiican u dhageyso, xifdi ku duceyso, walaalaha kalene u sii gudbi. bakhiil ha noqonin, agtaadii istaagna. waxaa ku duceysataa allahumma baarik lana fi shacbaan وبلغنا رمضان. oo macnaheeda tahay ilaahayow bisha shacbaan inta dhiman noo barakeey, camalka naga aqbal, dadka naarta laga xoreeyay naga dhig, waxaana gaarsiisaa bisha Ramadaanna gaarsii oo dadka ka faa'iideysto oo naarta laga xoreeyo naga dhig. salafkii hore ridwaanullaahi calayhim 6 bil markii Ramadaanka la dhaafo waxay ku duceysan jireen ilaahayow bisha Ramadaan naga aqbal. markay 6 bilood ka dhimantayna waxay dhihi jireen allahumma ballighna Ramadaan. sababta ay tahay waxay og yihiin bisha Ramadaan qiimahay leedahay, in naarta la iska xoreeyo, in jannada lagu galo, inay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bil. macnaheeda 83 sano ka badan ayay ka khayr badan tahay. haddaba ducadan ku duceyso maalin walbo, walaalaha kalena u sii gudbi, khayr allah ku siiyo. ugu dambeyntii walaalayaal, ilaahay dartiisa inay jeclaa, sidaa darteed ducadan ha hilmaamin. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. إلهي نو بركة بش شعبان بش رمضان، إله نجارسي. آمين لها كل دعويستا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم آمين.